بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء مدن أمباسادور ياماموتو دونالد ياماموتو martida kale ee sharafta halkan aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxeexno heshiiskii inaga iyo Mareykanka ka dhaxeeyay ee deyn cafiska runtii si aad u ogtihiin tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday arintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ah ee la soo sameeyay caamka ah ee la soo sameeyay America waxay qayb ka tahay hormoodna ka tahay Paris Club qolada la yiraahdo iyo qayb ka tahay iyagaana hormood ka ah ayaga discussion weyn ma la galay Mr Prime Minister discussion ka 31 bishii March ayaan la galay dabeetana waxa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhan ay sameeyaan general reduction billion iyo 400 milyan ay naga daayeen isla maalinta waxa dabeetana la isla gartay in dawlad loola hadlo wadanada dawlad loo tago marka dawladii bay tani marka ka socota dawladda America dawladda Spain dawladaha qaybta ka ah Paris Club ayaan marba dawlad la hadlaynaa mar dawlad walbana sanad uga saxan doona aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta taariikhdan historiga maalintan historiga Yamamoto wuxuu ka ciyaaray muxuu ahaa door weyn buu ka ciyaaray ninkan odayga Donald Yamamoto played a major role. Mr. Finance Minister and Mr. Prime Minister, it's a great honor to have you here as one of your first programs as Prime Minister. Thank you, congratulations. And this really is a historic time. Somalia is the 37th country on the International Monetary Fund Debt Relief Program. But what it does is it opens up Somalia to a brighter future. And of all the countries that have received this program, Somalia ranks as one of the best on the economic governance side, as well as the potential for the future programs. And for the United States, this is an investment, and an investment in the future of the people of Somalia, and also for the government for what you have done to recognize this historic program and what you have done for the people of Somalia in the future. So thank you very much for everything you've done, and now let's get to work. Yes, of course. marqaatiga ka noqday saxiixan oo deynta loogu cafinayo Soomaaliya marka koowaad dawladda Mareykanka United States of America way ku mahadsantahay always supportiga in la siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan marka inay garab istaagaan especially ambassador